wardegdega taliyahan dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa dowladda Soomaaliya u soo qaaday gudaha caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho waxaana lagu wadaa in maamulka cusub ee dowladda Soomaaliya ay ka wado in laga dhiso magaalada Garbaxaare ee xarunta gobolka Gedo maalmaha soo socda gudaha caasimadda Soomaaliya laga bilaabayo kulamo iyo wada tashi ay la yeelanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland taliyahan dowlad goboleedka Jubbaland u qaabilsan dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo birihii la soo dhaafay ku sugnaa degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa soo gaaray caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxaana taliyaha la sheegay in kulamo iyo wada tashi uu la qaadan doono madaxda ugu sareysa Soomaaliya ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa wado qorshe lagu dhisi lahaa maamul goboleedka Jubbaland cusub oo lagu wado in laga dhiso magaalada Garbaxaare ee xarunta gobolka Gedo waxaana imaanshahan xamar uu ku soo aaday xilli dowladda Soomaaliya ay wado dardargelin ku aadan sidii loo dhisi lahaa maamul goboleedkan cusub oo dowladda Soomaaliya ay ka wado in markaa bulshada deegaanada Jubbaland ay doortaan hogaamiyihii markaa hogaamin lahaa xaaladahan ayaa ku soo beegmay xilli dowladda Soomaaliya ay la kulmayso culeysyo iyo cadaadis kaga imaanaya dhanka wadamada caalamka ama kuwa beesha caalamka oo markaa doonaya in heshiis iyo wada hadal lagu dhameeyo khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa laga dareemayaa imaanshaha taliyaha dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo bilihii la soo dhaafay la ogaa inuu ka qayb qaatay xoreynta iyo sidoo kale in guud ahaan ciidamadii maamulka Jubbaland laga saaro degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo lama oga in Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan taliyaha dowlad goboleedka Jubbaland Soomaaliya u qaabilsan uu ku laaban doono magaalada Balad Xaawe balse waxaa jira kulamo kala duwan oo markaa uu la qaadan doono madaxda ugu sareysa Soomaaliya horay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Gedo ee dhanka dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Shimbir waxay warar ku soo kordho hoyga Banaadir TV ayaad ka daawan doontaan